بسم الله إسماعيل ورسامة ديجيتال ميديا. بسم الله. إن ساكا وحنو وحسكوي ديرينا سيدا يوصعطو doorasho ku sheegii ama doorashadii dadbanayd ee Soomaaliya waxaa la yidhi mar hadday doorashadu dadban tahay haddii laga hadli maayo wax la yidhaahdo cadaalad iyo dimuqraasi iyo wixii la mid ahaa waxaan maqli jiray carabtoo tiraahdaa تفننوا في هذا الأمر يعني حريفين بيكون نقدين سوماليدو هدا حريفين وحيكون نقدين سيدا doorasho dadban loo qabto oo mar hadduu reer hebel yahay reer hebel yani maanta hadduu yimaado oo 40 sano dalka ka maqnaa oo maanta ka soo dego airport waxaa la soo reer hebel maaha ku qora isaga yaa u codaynaya waxaa u codaynaya ergo aan qoyskiiba ka tirsanayn oo ismadii iyo labadoonadii shuqul ku lahayn waxaa laga yaabaa koox dhan oo maaragtay la dooranayo dibutaatiyaala in 101 qof u codeeyaan oo yani qabaa'il kala gidsan ka yimi ama hadday rabaan isku dada ama hadday rabaan askara ama hadday rabaan ardada jaamacadda ama hadday rabaan xer sheekh hebel تفننوا في هذا الأمر يعني waxay ku noqdeen xariifiin waayo waxay ogaadeen wuxuu hadday tahay wax dadban in si walba laga yeeli karo la tiifiyaano bannaan tahay yani si fiican bay ugu fiirsadeen waaba soo koobeen waxaa laga yaabaa 20 qof ama 25 qof hataa in maalin la dooran karo gelin la dooran karo waayo qof walba منعيس baa lagu lamaaninayaa dabadeedna markuu istaago wuxuu leeyahay waa tanaasulay dabeedna halkaasaa ninkii uu ku noqonayaa dibutaati markii hore awooddaas ku tagrifalka ah waxaa lahaa isimada beelaha duubabka dadka la yidhaahdo iyo nabadoonnada marka hadda rag kalaa soo baxay ragga madaxda dowlad goboleedyadaa soo baxay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa soo baxay waxaan maqli jiray daayeerka marka laga hadlayo mid waxaa jira daaxuur la yidhaahdo waa ka ninka oo weyn oo xoog leh mid kaloo kasii weyn baa jira oo waxaa la yidhahdaa qooro baluug baa la yidhahdaa qooro baluug ama qooro baluug nin walba siduu ereygaas u yaqaan hadda waxaa soo baxay laga teg isimadii iyo nabadoonadii waxaa soo baxay niman qooro baluuga oo iyagu kelimada u dambaysa leh oo iyagu ninkay rabaan dibutaati ka dhigaya waxaa ka daran taas kii doorasho raba oo madaxweyne ka rajo qabana dee wuxuuba u fududaynayaa nimankaa dibutaatayaasha hawshii dhibka badnayd oo kharashka badnayd oo ergada la dooran jiray oo ergada lacag la siin jiray oo isimada la laaluusi jiray oo nabadoonada la laaluusi jiray hoteella loo kirayn jiray ayuuba ka badbaadaya waayo waxa soo baxay nin qooro buluug la yiraahdo oo isagu ka bixinaya lacagta
marka laba nooc weeye qoora buluuggaas laba nooc weeye qoora buluug isagu wax raba oo madaxweyne inuu noqdo raba marka isagaa lacagta bixinaya iyo qarashkoo dhan mid aan waxaa jira aan raban isagu doorasho laakiin qaraabanaya oo nin doorasho raba xildhibaano usoo saaraya iyo xildhibaanada laftigooda oo lacag diyaar la oo isfalisaya oo isagu ay ku xiran tahay hadba kuwa ka qaadanayo kuwaas waa qoora buluug shaqaysanaya oo haddii la kuray qaraabanayo lacag guranayo wey kan kalena waaba u fududeeyey marka waxaaba ka baqayaa midka u fududaynayo oo maaragtay ergadii aan lacag siinayn oo haddii la kuray xildhibaanadii aan lacag siinayn musharaxiintii aan lacag siinayn inayba nagu abaadaan ka baqayaayo ay noqoto wax joogta ah oo qoora buluug weligii jooga oo aan dhicin inuu noqdo marka arrimuhu saasay yihiin intaana barnaamijka ka bixin walaalayaal waxaan rabaa inaad maaragtay aad subscribe-garaysaan oo maaragtay barnaamijkan aad kusoo daydaan marka sida subscription baa loo baahan yahay aan lacag kugu fadhiin cajaladaan markaa dhagaysata hoosteeda waxaad ku arki doontaa youtube-ka khad cas oo subscribe marka kaa ku dhufo gambaleel kala furo dabadeedna si automatic ah ayaa barnaamij walba kugu soo gelayaa qolkaaga kugu soo gelaya ama cellphone-kaaga ama mobile-kaaga ama tablet-kaaga ama computer-kaaga ayuu kusoo gelayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waa mahadsantihiin